dowladda Mareykanka ayaa lacag gaaraysa $10 milyan oo dollar ku doonaysa madaxa hogaamiye dhanka ciidamada ah oo ka tirsan ururka hubeysan ee Xisbullah oo ka aasaasan dalka Lubnaan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay siinayso $10 milyan oo dollar cidii keenta xog sahlaysa soo qabashada Sheikh Mohammed al-Kawtharani oo ah taliyaha dagaalamayaasha ururka Xisbullah. Hogaamiyahan ayaa saaxiib dhow la ah sargaalkii Iiraan lagu dilay Ciraaq bilowgii sanadkan waa General Qasim Suleymani. Dowladda Mareykanka ayaa sargaalkan ay lacagta ku raadinayso waxay ku eedeysay in uu sabab u ahaa maleeshiyaad la geeyay dalka Syria si ay u caawiyaan ciidamada dowladda Syria ee dagaalka kula jira xoogaga ka soo horjeeda. Sidoo kale warbixinta ka soo baxday waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa lagu sheegay in hogaamiyahan uu maleegayo weeraro ka dhan ah diblomaasiyiinta reer galbeedka ee gobolka ka shaqeeya.